xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasna lagu taageerayo maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka ayaa lagu qabtay caasimadda dalka Finland ee magaalada Helsinki kuwaas oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka iyadoo sidoo kale halkaasi uu ka hadlay gudoomiyaha jaaliyada Jubbooyinka ee dalka Finland Dr. Xuseen Xirsi Hire waxaana kamid ahaa hadaladiisii dhammaan dadka meesha isugu yimid ee Soomaalida ah dhammaan waa salaamaya jaalid ahaan aad baan idinkaga mahadnaqaynaa inaad nagala soo qayb gashaan maanta xafladan taageerada aanu ku taageerayno maamul u sameynta ama maamulka ku meel gaarka ee jira gobolada Jubbooyinka maanta saad ula socotaanba Kismaayo waxaa ka degay guddigii farsamada way tageen waa la soo dhaweeyay jaamacaddii Kismaayo ayay degan yihiin oo ah dadka u gogol xaari doona ama shirka soo socda dadka qaban qaabin doono marka hadalka ma sii dheeraynayo waxaan dirayaa baaq ku aadan gobolada Jubbooyinka iyo dawladda federaaliga ah in la tixgeliyo loona ogolaado rabitaanka dadka in ay ku subsadaan maamul goboleedkooda waxaan kaloo baaq u dirayaa ku saabsan ciidamada iyo maamulka ku meel gaarka ah ee jooga gobolada Jubbooyinka in ay tixgeliyaan human rights oo dadka bini'aadanka aan lagu xadgudbin Jubbaland maantay waxay sameysanaysaa maamul oo runtii ah maamul ku saleysan dawladda federaalka Soomaaliya waxay sameysatay dawlad federaal ah waxaana muhiim ah in ay maamul kasta ama gobol kasta ama labadii gobolba israbta inay sameystaan maamul waxa xaqiiq ah ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba inay u baahan tahay nidaam iyo kala dambeyn waxaan mar labaad qeexayaa haddaan nahay jaaliyada Jubbaland ee ku dhaqan Finland in aynu si buuxda u wada taageersanahay maamulkaas kuna faraxsanahay soona dhaweynayno kuna qanacsanahay dhamaantood waxaan ognahay ama aynu hadda beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo inta laga yaabo inay fiirsato shirkan aan u sheegaynaa inaanu taageersanahay maamulka Jubbaland in dhismihiisa aanu taageersanahay ayaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed Jubbooyinka waxaa ka dhacay isbedel dawladda Soomaaliya doorka ay ku leedahay marka waxa weeye taageero soo dhaweyn iyo gacan qabasho marka way magaalada Kismaayo Soomaalidu dhan baa wada degta waa deegaan la wada degan yahay waxaan diyaar u ahay nabad Soomaaliyeed inay Soomaali nabad noqoto ayaan diyaar u ahay ugu horeyntii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qolooyinka soo qaban qaabiyay barnaamijka kan iyo dadka soo qayb galay haddii dadka dhulka deganaa ay nabdoobaan dadkii kale Soomaaliyeed dhulka waxay ku leeyihiin iyaga laftirkooda dambe u tahay waxaan filaynaa dawladdu aan ka rajeynayaa waa dawladdeennii mataqaanaa inay gacan siiso dadkaas inay maamul samaystaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dhulkaas barwaaqada ah ilaahay nabdeeyo oo ummadda ku nool ee nabad ku noolaado hadal badan oo soo wada Cumar baa sheegayo waxaa muuqata odayaashaynu la qabnaa haddaynu culimo nahay ama aynu nahay dhalinyaro ama aynu dumar nahay in dadka goboladaasi degan haddii ay doorteen inay ayahooda ka tashadaan runtii sloganka dadka Jubbooyinku ka soo jeeda waa inay ahaadaan la tadlimuuna wala tudlamuun inaad adiguna waxba dulminin adna aan lagu dulminin haddii qaacidadaasi laga duulo ayadaas quraanka waxaad moodaa wax walba hagaagaya waxaan ka soo qayb galay shirka jaaliyada Jubbooyinka ay qabsadeen waana ku faraxsanahay dawladda federaalka waxaan ku taageerayaa in ay maamuladayada oo Jubbaland ay nagu taageerto maadaama anagu maamul sameysanayno aysan naga arqalad waxaan maanta sharaf ah inaan ka soo qayb galo shirka jaaliyada Jubbaland ee wadanka Finland oo si aad u wanaagsan u dhacay ulajeedada shirku wuxuu ahaa in la taageero isbedelka ka dhacay gobolada Jubbooyinka iyo maamulka la wado under process-ka ama qorshihiisa la wado waxaan soo dhaweynayaa midowga beelaha dega goboladaas iyo garashada iyo guusha ah inay maamul sameystaan oo qalaasaha iyo dhibaatada dagaalka ay ka baxaan
waa markii ugu horeysay oo jaalida Soomaaliyeed ee dalka Finland ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka ay taageero u sameeyaan maamul sameynta gobolada Jubbooyinka waxaana ay dawladda Soomaaliyeed ka codsadeen in ay garab ku siiyaan howlwadeennada haatan ka howlan sidii loo hirgelin lahaa maamulka Jubbaland. Maxamed Bashiir oo Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, Helsinki, Finland.